kulanti wanaagsan daawade. Halkan waa Abraham Show. Waxaan warbixintan kooban aan idinkugu soo gudbin doonaa daraasaad la sameeyay oo tilmaamaysa sababaha keena cirrada iyo wax lagu daweyn karo. Saynisyahano ayaa sheegay in laga yaabo inay heleen in walbahaarka ama walwalka uu timaha ka dhigo kuwo cad ama cirro leh. Marka horeyse daawade, haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad janalkan aragto, fadlan subscribe sidoo kale taabo gambaleelka ku muuqda si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela macluumaadkan halkan ku baahino. Waxaa kale oo ay ogaadeen sida looga hortagi karo cirrada iyadoo aan la isticmaalin madoweyso. Tijaabooyin lagu sameeyay jiir ama dooli ayaa lagu ogaaday natiijooyinkan. Mid ka mid ah jiirarka oo dhogortiisa ay madowgeed ayaa xanuun la marsiiyay, taasoo ku dhalisay walwal badan. Dhogortiisana waxay ku caddaatay muddo toddobaadyo gudahood ah. Cilmi baarayaasha oo ka kala yimid Mareykanka iyo Brazil ayaa sheegay in tani ay horseeday in la raadiyo daawo dadka ka caawin karta inaysan timahood cirroobin xitaa haddii ay weynaadaan. Dumarka iyo ragga ayay cirrada ku bilaabataa bartamaha sanadaha soddomeeyada marka ay marayaan, gaar ahaan marka ay waalidiin noqdaan. Inkastoo cirrada inta badan ay ka dhalato qofka oo ay da'diisu sii weynaato, ayaa haddana waxaa la ogaaday walwalka iyo walbahaarka uu horseedo. Waxay saynisyahanadan oo ka kala tirsan jaamacadaha São Paulo iyo Harvard ay sheegeen in cirrada ay ka dhalato unugyo jirka oo sii daaya maado lagu magacaabo melanin, taas oo beddesha midabka tinta. Waxaan ognahay hubanti ahaan in walwalka uu mas'uul ka yahay in tinta midabkeeda uu isbedelo, ayuu yiri Professor Yajay oo ka tirsan jaamacadda Harvard. Cilmi baarayaasha ayaa dooli kala siiyay daawooyin walwalka dejiya, isla markaana ka hortaga in uu dhiigga kaco. Kadibna waxaa dhacday in markii la mariyay isla markaana xanuunkii dooligii hore oo kale aysan isbedelin midabka dhogortiisa, balse waxa ay sheegeen in aysan weli daawo u helin cirrada, balse ay tahay arrin bilow u ah in la raadiyo daawada cirrada. Daawade, warbixintii kooban oo aynu kaga hadlaynay daraasaad saynisyahano ay sameeyeen oo ku saabsanayd sababaha keenta cirrada iyo wax lagu daweyn karo, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa.